munaasabadan aad loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen maamul heer gobol iyo heer degmo ah sida barasaabka gobolka Gado Mudane Cusmaan Nuux Xaaji Macalimow iyo taliyaha xasilinta gobolka Gado Mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Aadan Bakaalkooke iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka sida degmada Luuq iyo degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gado Mudane Axmed Buule Greed iyo Mudane Farxaan Cali Mire. munaasabadan ayay ahayd mid lagu daahfurayay 24 kooxood oo ka dhisan kooxyada degmada Luuq. munaasabada ayaa ahayd mid laba naadi oo la soo xulay ay wada dheelayeen oo ay guusha ay ku raacday naadi kamid ah. ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay gool kulaad. isla goobtaasi waxaa lagu gudoonsiiyay abaalmarinta ay shaqaysteen mid kamid ah tiimkii ku guuleystay ciyaarta. ajaha garow aqoon jirteen aan afariga dhamaan dhalinyarada inuu aad iyo aad wax ula qaban doono insha Allah taala anagu waxaan idin ballan qaadayna hadii aan raali ka noqdo garoonkan inaan leerar ku xirna habeen imaan lagu ciyaari doono roogiisa hadii aan raali ka noqdo noqon doono garoon caalami ah guud ahaan degmooyinkana waxaan rabnaa garoomada inaan ka dhisna dhalinyarada degmooyinka oo dhan dhammaan degmooyinka oo dhan baahi bilaaran loo qabaa weli gaar ahaan degmada Balad Xawo aad u bilaaran garoon male wada tiin wada arkeen waxaan jeclahay hadii aan raali ka noqdo degmooyinka inaan u sameeyno garoomo caalami ah oo roogag leh dawladdan waa ka codsanay inay noo keeni doontaan waa kaliya garoomada Muqdisho lagu ciyaaro camal oo aragteen oo hadda ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay aad ugu qayb qaateen in la sameyn doono insha Allah taala ay noo kaliya leerarna waa ku xiri doonaa kuwa habeen imaanin baad ku ciyaartaan waa noqon doontaan waxaan sameyn doonaa dhalinyarada u sameyn doonaa heer gobol xafiis oo sameyn doonaa dhalinyarada sportiga kuwa degmada waxaan u sameyn doonaa xafiisya gudiyada ciyaar waxaan gudiyada ciyaartooyda ma gudiyada shaqeeyana waxaan rabnaa kuwa fadhiyana ka dhigna diilaha raali ka noqdo jiilalka ciyaar marka kuwa aan soo saarno oo gobolka Gado iska daayo gobolada kale la tartamo inay noqdaan rabnaa ugu dambeyn inay caasimada Muqdisho tartan u tagaan rabnaa doorashooyin laga fikiri oo sax inay ka dhici doonaan dalka waa fili hadii la raali ka noqdo madaxda qarankana ayada doorashada hogaaminaysa dawladdiina la garab istaaga amnigiina hadii la jooga la garab istaaga shacabkiina la garab istaaga annagana waxaan jecelnahay waxbarashadiina iyo ciyaartiina inaan kor u qaadi doono hadii la raali ka noqdo kor Allah idin ka dhigo kor u kacana Allah idin ka dhigo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaana markasta dhalinyaradu waa inay noqotaa kuwo ku aadan wadada dawladnimo iyo midnimo iyo garab istaaga maamulka iyo amniga intaasaan anigana kulay idin kula dardaarmi lahaa waxaana rajaynayaa inaad noqotaan kuwo dalkooda fiirad u leh meesha uu u socdo iyo higsiga wanaagsan ee hadda noo muuqdo ee dawladnimo inay idinkuna hadee madaxdii maanta tihiin ku tashataan qof walba meesha ku haboon inuu qabto la shaqaysaan amniga la shaqaysaan maamulka la shaqaysaan horumarka sportskana markasta kulli anagu waxaan ahaanayaa gacanta koowaad insha Allah taala assalaamu calaykum Abdunuur Shabley Xasan Abdunuur Shikir warbaahinta qaranka degmada Luuq Ganaane ee gobolka Gado.